wasiirka qorsheynta qaranka Somaliland Saad Ali Shire ayaa kulan kula yeeshay jaaliyadda Somaliland ee London xarunta jaaliyaddu ku leedahay galbeedka magaalada London maalintii Axaddii wasiirka oo ay ku weheliyaan madasha uu kulanku ka socday wakiilka Somaliland ee UK Ali Aadan Cawaale Caashe Xuseen Mareykan oo dalkii dhawaan ka soo laabatay ayaa bulshadii halka isugu timid kala hadlay arrimaha Somaliland iyo mashruuca uu maalgelinayo bangiga adduunka oo baryahan beddelka gudihiisa si weyn uga socday wasiirka ayaa mashruuca maalgelinta ee bangiga adduunka u sharaxay dadkii halkaasi isugu yimid waxaana wasiirku ku dhiirigeliyay inay ka soo qayb galaan maalinta la salaasada bishu ay laba tahay oo lagu qaban doono London loogu soo bandhigi doono dadka reer Somaliland waxa uu yahay mashruucaasi waxaana wasiirku ka waramaya uu yiri sida tan ku soconaa waa aniga iyo Abiib in la yiraahdo waa DG-ga wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiskii warshadaha waxaanu ka qayb galeynaa shir dhacaya salaasada halkan ka dhacaya oo ay qaban qaabinayaan qolada World Bank shirka waxa laga hadlayaa oo loo soo bandhigayaa dadka inay ka soo qayb galaan tartan loo gelayo lacag 3 milyan iyo 600 kun oo la doonayo in lagu taakuleeyo ganacsiga ama lagu dhiirigeliyo ganacsiga xawaaladaha sidoo kale wasiirku waxa uu ka dhawaajiyay lacag uu sheegay in laga qaadayo dadka qurba jooga ah oo laga jarayo lacagaha xawaaladaha ee ay soo diraan taasoo uu sheegay in ay u qoondeeyeen shirkadaha xawaaladaha inay ka gooyaan hase ahaatee ay lacagtu noqon doonto mid dheeraada oo la raaciyo sida qorshuhu yahay lacagta ay dadka u soo diraan warta xawaalad la cashuuraya ma jirto xawaaladu marka wadanka la joogo waxay ka mid yihiin businesska waxa laga qaadaa laba cashuurood mid waa income tax-ka waa shaqaalaha laga qaadaa midna waa corporation tax-ka amba waa macaashka tan la yiraahdo taana waa laga qaadaa waxa arrinka iga faradhooban wasaaradda maaliyadda oo ka qaada laakiin dad badan waxay yiraahdaan wixii intii xaq loogu lahaa laga ma qaado anu ma oran karo laakiin waxaan ku ogaanay in wax laga qaado arrinkan hadda aanu la soconno maalintii hore halkan aanu kaga hadalay cashuur ma waa contribution laga qaadayo qofka lacagta diraya iyaga waxba la weydiin maayo waa diraha hadda $100 dirayso halkii aad $5 ka bixin jirtay khidmadda iminka 6 baad bixinaysa marka $1 baa tagaya sanduuqa marka sanduuqa hadii uu nooga soo baxo sanadkii 2 milyan 3 milyan arrimaha hadirtaan ka hadlayaha jidadka biyaha wax badan bay nooga qaban karaa runtii wasiirka oo ugu talagalay in uu kala hadlo bulshada halkaasi isugu timid arrimaha maalgashiga iyo qorshaha ay leedahay xukuumaddu ayaa sidoo kale bulshada halkaasi isugu timid ay ku boobeen su'aalo la xiriira arrimaha siyaasadda dibadda qorshaha dawladdu ka leedahay mustaqbalka Somaliland iyo wadxaajoodka Soomaaliya iyo sidoo kale waxa ay u qorsheynayaan ee ay ku wadaan siyaasad ahaan guud ahaanba Somaliland xukuumadda uu ka midka yahay Cabdullaahi Maxamed Cali television qaranka Somaliland London